السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiin baa meel kasto aad joogtaan. Maanta waa maalinimo Talaada, taariikhduna waa 2 bisha May sanadka 2023. Barnaamijkeena Nadaara Show waa barnaamijkii ugu horeeyay ee maanta aan idiin soo gudbinayno. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa arrimo ku saabsan dagaalada waddanka Suudaan halka la kala marayo. saacadihii ugu dambeeyay yaa guul gaaray yaa meel laga qabsaday dadkii qaxay xaaladooda waa sidoo kale waxaan idiin hayaa warbixin la yaab leh oo ku saabsan dawladaha dariska la ah waddankaasi Suudaan iyo cabsida sirdoonka reer galbeedku ay geliyeen in khatar ay kaga iman karto dhinaca Suudaan. waxaa sidoo kale la yaab leh in la leeyahay mukhaabaraadka dunidu waxay ka shakisan yihiin al-shabaab in ay u wareegi doonto dhinaca iyo Suudaan. tolow yaa geyn doona meesha. haddaba sheekooyin cajiib ah oo aan warbaahinta ka soo ururiyay ayaan idinkula wadaagi doonaa barnaamijkan. soo gudbinta barnaamijyadeennana waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee la yidhaahdo Safari Remit. xarunteeda waa UK, adeegeeduna waa online. fadlan booqo boggooda www.safariremit.com. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay khiyaartana daawanaysa ay kulanti wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga daawanaysaan. barnaamijkeenan waxaynu kaga hadli doonaa arrimaha waddanka Suudaan oo sheekooyin xiiso leh ay kusoo kordheen saacadihii lasoo dhaafay. haddaba marka ugu horeysa aan ku hormarno kooxda la yidhaahdo Dacmu Sariic ayaa video ay soo duubeen waxay la wadaageen warbaahinta. waxayna sheegeen in gebi ahaanba iyagu ay saacadihii lasoo dhaafay la wareegeen xarunta la yidhaahdo Qasrul Jamhuuri ama xarunta madaxtooyada waddanka Suudaan. labadii toddobaad ee lasoo dhaafay dagaalada culus goobaha ay ka dhacayeen oo mar walba la isku farasaarayay ayay ka mid ahayd Qasrul Jamhuuri. haddaba videogan oo aanu kasoo xiganay qaar ka mid a warbaahinta ayaan idinla wadaagaynaa iyagoo muujinaya in ay ku dhex jiraan gudaha xarunta la yidhaahdo Qasrul Jamhuuri ama madaxtooyada waddanka Suudaan. haddaba sidaad arkaysaan waa ciidamada Dacmu Sariic oo gudaha xarunta ku dhex jira. sidoo kale videoga ay soo dhigeen waxaa laga dareensanayay in dagaal culus uu meesha ka dhacay, baabuuro badan lagu gubay, hub badan. marka weli wax jawaaba oo dhanka ciidamada militariga ka yimid ma jiraan. waxay ku qaylinayeen oo ay leeyihiin waxaan qabsanay xaruntii madaxtooyada. waxaan sidoo kale raadin doonaa meel allaali iyo meesha uu ku dhuumanayo Cabdulfataax Burhaan. haddaba videogaas markii lasoo gudbiyey kadib ayaa wariyayaasha waxay soo tabinayaan in ciidanka cirka ee waddanka Suudaan ay duqeymo culus ka sameynayeen gudaha magaalada. waxay sidoo kale duqeynayeen daafaha xarunta Qasrul Jamhuuriga ama madaxtooyada waddankaas. haddaba si kastoo ay xaaladdu tahay, jawiga magaalada Suudaan ayaa weli qasan iyadoo lagu baaqay wadahadallo in ay ka dhacaan waddanka Suudaan. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddanka Suudaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labada dhinac ay aqbaleen inay wakiilo u dirsadaan waddanka Sacuudi Arabiya si wadahadaladii ugu horeeyay ay halkaa uga furmaan. waxaa sidoo kale la leeyahay xabad joojintii 6aad oo lagu dhawaaqay shalay ayaa haddana u muuqata midaan caga badan ku taagnayn iyadoo maanta duqeymaha dhinac walba magaalada Suudaan ay ka dhacayaan. haddaba waxaa sidoo kale idin tusinayaa dad fara badan oo qaxooti ah oo reer Suudaan ah oo wadamada dariska u cararaya. haddaba sida videoga aad ka arkaysaan dadkan waa dadkii ka cararay dagaalada waddanka Suudaan. waxay u badan yihiin dad marasa, caruur, haween iyo sidoo kale dad da-ah. dadkan diriraya iyagu marnaba uma naxayaan dadkooda, waxayna go-aansadeen in mid walba ilaa midka kale uu ka takhaluso
inaanu dagaalka joojin doonin. ciidamada militariga weli waxay wadaan eedeymahoodii ku saabsanaa dacmu sariix inay ku dhuumanayaan goobaha dadka rayidku ay degan yihiin magaalada. sidoo kale waxay ku eedeeyeen cisbitaalada inay ka dhiganayaan xarumo markaa ciidan. ciidanka militariga isna waxaa lagu eedeynayaa war ka soo baxay dacmu sariix in si aan loo meeldayin ay duqeymo uga sameynayaan dhulka dadka rayidka ay joogaan. si kastoo ay xaaladu tahay, magaalada waxay u muuqataa weli in dagaalkeedu aanu fara ka qodnayn. dadkuna waxay maalin walba maalinta ka dambaysa go-aansanayaan inay magaalada isaga sii baxaan. intii ku hartay ee adkaysiga doonaysay ayaa iyaguna sii go-aansanaya inay magaalada iskaga dhaqaajiyaan, iyadoo lagu guuldaraystay 5 xabad joojin oo ka horeysay middan 6aad ee iminka xaalkeedu uu allow sahal yahay. haddaba si kastoo ay tahay, waxaan markan idiin hayaa warbixin cajiib ah oo laga sii daayay telefishinka Al-Jazeera. warbixintan telefishinku wuxuu leeyahay waxaa laga soo xigtay mukhaabaraadka dalal waaweyn saameynta dagaalka Suudaan ama sirdoonka dalal waaweyn saameynta uu ku yeelan karo dagaalka Suudaan wadamada dariska la ah ee wadankaas. haddaba inta ugu badan warbixinta sida muuqata waxay ka timid sirdoonka wadamada waaweyn oo Mareykanka ugu horeeyo. Mareykanku waxa ay leeyihiin dhowr wadan oo xuduud la leh wadankaas Suudaan. waxaa ka mid ah wadamada xuduuda la leh wadanka Chad, wadanka Liibiya, wadanka Ethiopia, wadanka Jamhuuriyadda la yiraahdo Afrikada Dhexe, wadanka la yiraahdo Koonfurta Suudaan, waxaa ka mid ah wadanka Eritrea. dhowr wadan ilaa 7 wadan ayaa xuduud la leh Suudaan. haddaba sirdoonku marka waxay leeyihiin Suudaan maadaama 7 dowladood ay xuduud la leedahay, dhibaatadeeda wadamada way ku fidayaan. haddaba warbixinta aan idin tuso iyadoo la sameeyay sida ay wax u dhici karaan oo saadaal ah. haddaba sida aad arkaysaan wadanka Chad ayaa waxaa la leeyahay sidaas ayay musallixiinta ama dadka hubaysan isaga kala gudbi doonaan iyagoo qaxootiga ku dhex dhuumanaya. marka sidaasa marka ay isu dhaafi doonaan, wadanka Chadna wuxuu noqon doonaa wadan hubka qaata oo isaguna dadkiisu ay isdilaan. waa cajiib. waxaa sidoo kale ay leeyihiin wadanka Liibiya oo isna daris la ah wadanka Suudaan. sirdoonada dalalka waaweyn waxay leeyihiin hadduusanba Liibiya caga badan ku taagnayn oo ay kala qaybsan tahay, iyaduna sidaabay noqon doontaa. oo macnaha hubka iyo kooxaha hubaysan iyo kuwa dhibaatada geysanaya intaba iyaguna sidaabay isaga gudbi doonaan. waa tahay waxaa ku xigay leeyihiin nimanka reer galbeedka sirdoonkooda Ethiopia oo iyaduna kaalinta 3aad ku jirta oo khatar ugu jirta Suudaan dagaalkeeda. waxaana la leeyahay Suudaan waxa ay hadda Ethiopia ka soo kabanaysaa dagaal sokeeyo oo Tigray iyo dowladda dhex maray. haddana waxay isku haystaan waliba Suudaan iyo iyaga dhul xuduuda ah oo markaa qolo walba midda kale ay sheeganaysay muddooyinkan. marka waxaa leeyahay iyaduna sidaasa dadka hubka iyo dhibaatada wadanka Suudaan ay uga soo dusi doontaa. Ethiopia iyaduna khatar weyn bay ku jirtaa baa la leeyahay. waa tahay waxay sidoo kale sirdoonka wadamada reer galbeedku ka hadlayaan wadanka yar ee la yiraahdo South Sudan ama Koonfurta Suudaan. isagu wuxuu hore uga go'ay Suudaan. dad badan oo qaxootiya oo reer South Sudan ayaa iyagu waxay u qaxeen ilaa 800 oo kuna wadanka Suudaan markii dagaalada dhexdooda ay markaa ay ka dhexdhaceen. markii ay ka go'een Suudaan ayaa dhexdooda iska raaceen nimankan la yiraahdo South Sudan ama Koonfurta Suudaan. marka dad badan oo qaxay ayaa Suudaan aaday. dadkii hadda dib ay u soo qaxayaan, hubay la imaanayaan, dhibaato kale iyaguna halkaabay xaalkooda uu marayaa. marka khatar ayay ku jiraan baa leeyahay wadanka yar isaguna in saameyn ay ku yeeshaan dagaalada iyo hubkan faraha badan ee wadanka Suudaan daadsan. sheekada ugu xiisaha badan waa qaybahan dambe. wadankan la leeyahay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faransiiska laga cayriyay.
waxaa qabsaday nimanka ruushka ee la yidhahdo Wagner markaa waxay soo degeen hadda xuduudda waddankan xuduuddiisa waxaa laga qodaa dahabka dhinaca Suudaanna waxaa laga sameeyaa dahabka qolooyinka marka dacmu sariic ayaa eeriyada iyaguna ka dhow oo dahabkan iyo waxaan ka wada shaqaystaa markaa sirdoonka reer galbeedku waxay ka digayaan waxay leeyihiin isdhaafitaanka halkaa waxaa ka dhalan kara nimanka Wagner la yiraahdo inay xoog ugu lug yeeshaan waddanka Suudaan sidoo kalena Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe hub fara badan iyo dhibaato badan iyaduna ay waddanka Suudaan kala kulanto arrintan marka la yaab kale oo anigana aan la yaabanahay adinkuna aan idiin soo gudbinayo oo sirdoonada wadamada reer galbeedka iyo Al Jazeera tabinayso waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta waddanka Suudaan Al-Shabaab xagee mare Ethiopia u dhaxaysa Suudaan iyo Soomaaliya ma boode alaabtii jarkaboodadii miya may meesha marka dadka wax taxliiliya waxay leeyihiin laga yaabay shabaabku inay dad u joogaan Soomaaliya oo macnaha Soomaaliya laga sameeyay haddana in la rabo in qayb ka mid ah la qaado lagu talaalo waddanka Suudaan si uusan weligiis xal u helin oo qolo kale meesha looga tilmaamo marka xalkaas iyaduna halkaas maraysa waa wax la yaab leh adduunkan wax walba arkaysa hore la isugu eedeynayay Daesh adaa sameeyay iyo oo Mareykan iyo Turki iyo kulli iyo waxa dhan ay la isku eedeynayay haddana waxaa leeyahay shabaabka Soomaaliya joogo aan arkayno hadda xaaladooda oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay maalin walba meel ka qabsanayaan oo ay jagta ku hayaan ayaa lagu cabsiinaa Suudaan iyo wadamada dariska waxaa cabsiinaa macalinka weyn iyo xulufadiisa waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in ay falgal ku yeeshaan Suudaan oo ay tagaan xagee marayaan marka waa la qaadaa saasa u qaatani adikuna fakarkiina soo qora kulay qayba la qaadi doona xagga lagu talaali doona si aysan Suudaan weligeed marka ma heshiinayso sida annaga oo kale waa marka annaga waa isgaraacnay nimankaana naloo keenay saasan jagta isu waynaa qarax dhib gab ayagana hadda la rabaa marka in lagu bilaabo ilaahu badbaadi annagana ilaahuna badbaadi waxay fakaro arrintan ka qabtaan soo qora waxay idin la tahay adduunka sidaas u mara xaaladun halkaas ay mareen inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay dalka Suudaan fadlan barnaamijyadeena markaad daawataan Facebookgeena iyo YouTube-keena share gareeya oo like saara inta aan mar kale kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo